السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن ونكسان دا وضيان ميل والبو هذا دونك كجوكتان يو غوركستا جوكتان كسو دواada barnaamijkii falanqaynta oo si toos ah idinka imaanaya studio TV-ga qaranka Soomaaliyeed magaalada London. barnaamijkana waxa idin daadin doona aniga oo Xalaar Cabdi Maxamed waxaan ku qaadaa dhigi doonaa hadii Rabbi ka raali noqdo barnaamijka isbedelada siyaasadeed ee ka jira guud ahaan caalamka gaar ahaan dalka Soomaaliya. waxaan agala qayb qaadan doona hadii Rabbi ka raali noqdo barnaamijka Tutor Cabdiqaadir Maxamed Cismaan oo loo yaqaano Cabdi Boqor oo ku sugan wadanka Malaysia ahna bare jaamacadda caalamiga ah ee Al-Madina International University ee wadanka Malaysia qaybteeda maamulka iyo dhaqaalaha khadka ayuu si toos ugu jira hadii Rabbi ka raali noqdo waana uu nagala qayb qaadan doonaa haye mudan ku soo dhow TV-ga qaranka Soomaaliya mudane cali aar iyo bahda TV-ga qaranka ummadda Soomaaliyeed Somali National TV waan idin mahad celinayaa marka hore marka labaadna waan ku dhawaa barnaamijka aad baa u mahadsantahay saaxiibkay aadan kaga mahad celinayaa waqtigaaga aad na soo siisay anaga runtii aad baan ugu faraxsanahay haddaan su'aashayda ugu horeysa ku weydiiyo Tutor Cabdiqaadir maanta Soomaaliya waxa ka jira isbeddelada siyaasadeed oo runtii aad u qurux badan markii la fiiriyo dalka Soomaaliya maanta waxa uu galay xaalad nabadeed waxa dhawaan magaalada Muqdisho ku qabsoomay doorashooyinkii madaxda ugu sareysa dalka sida gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha dalka ka waran bal sidee u aragtaa isbeddelka siyaasadeed ee nabadeed ee dalkeena ka dhashay isbedelada wadanka ka dhacay xaqiiqdii waxaan u arkaa waxa aad wanaagsan waxaan u arkaa sharafta ummadda oo xaqiiqdii soo noqonaysa waxaan u arkaa karaamadii ummadda iyo magacii Soomaaliyeed ee lagu yaqaanay ee soo noqonaya waxaan u arkaa bilaabasho dhab ah ee qarannimadii adkeyd ee ummaddu ay alleele u wada hiilanayd muddo dheer inay soo noqonayso waxaan u arkaa in wadanku uu galayo jawi ee xaqiiqdii ganacsatada ummadda ee maanta cabsida jirta iyo amni darada ka jirta wadanka darteed ay dhisayaan wadamo islaameed maanta China fiiri Soomaalida ganacsiga ay ku hayso ay hantidooda ay gelinayaan wadamadaas kala dhisayaan iyo shaqooyinkii u abuurayaan dadka wadamada Thailand, Kenya, Ethiopia, South Africa, Mozambique waxaasoo dhan waa wadamada ummadda Soomaaliyeed maanta ka ganacsanayso oo ay hantidooda gelisay hadii markay ay helayeen wadan amni ah dabcan ganacsigana intay gelin lahaayeen Soomaaliya shaqooyin fara badan ummadda ay abuur lahaayeen marka rajada ay ku soo noqon lahaayeen inay abuurantay ayaan dareemayaa in ay soo socoto ee waliba iyadoo tusay taabsi ah rajadii ay qurba jooga ummadda ay ku soo noqon lahayd hooyooyinka ilmaha laga qaadanayo qurbaha ku rafaasan ee ilaa wadankeena maalin nabad nooga dhig lahaa muddo aan yareyn 20 sano ah in maanta ay helayaan fursadii ay alla ilaahay ku soo noqon lahaayeen wadanka ku soo gali lahaayeen waxa jirta arday fara badan oo dalka dibadda wax ka barta oo markay rabaan inay wadankooda soo booqdaan waalidka ileen isku soo noqonin haniyaan maartay wax naga ka gaarina maanta waxaan dareemayaa in maartay ay rajo ay wadanka ku tagi karaan ay maartay ay jirto meesha taalo waxaan dareemayaa in ay jirto fursad ay bilaabatay alaqalla maartay fursad ay ku soo wadanka ku soo gali karaan shirkado waaweyn oo ganacsi iyo hay'adaha caalamiga waaweyn oo si dhab ah wadankii investment ama maalgelin ugu sameeysta waxaan ku leeyahay shaqo fara badan oo abuuro dhalinyaro fara badan maanta faqriga shaqo la'aanta darteed ee waxyaalo fara badan ay ku keenaysa mesela inay u talaabaan ama aqoonyahano fara badan oo wadanka dibadiisa dad kale ajaanib u shaqeeya fursad ay ku helayaan in wadankii ugu sano ugu shaqeeyo waxa way ana tagay Soomaaliya hadda dhow waxaan ka soo noqday bilan soo joogay fasaxay aan waliifka ahaa waxaan ka soo noqday adiga 7 September hadda dhow rajada ma aha ma aragtay iska sheegid oo kaliya wadanka ka jirta iyo isbedelka wadanka dhacay waa mid tusay taabsiya oo xaqiiqo oo dhab ah waxyaalihi aan ku soo arko aad iyo macaan badan aad iyo farxad geliyo waxa kamid ah wadankii taalooyinkii ummadda ay lahayd ayaa inta calankii Soomaaliya lagu hardhay oo darjiimooyin loo sameeyay ayaad dareemaysaa shucuur qarannimo inay jirta wadanka ka dareemaysaa waxa arkaysaa guriyii ma aragtay dawladda ay lahayd oo dadka ma aragtay shacab iska deganaayeen in inta laga saaray dawladda dayactir
jirtay waliba qaarkood dawladda ku shaqo bilowday oo waxa xaqiiqdi u qiimo badan ah oo hanaan dawladnimo qarannimo dhaba in soo isbaxayso wadanka ay dareemaysaa habeenkii kale mesela waxa arkaysaa markii aad gawaari wadato magaalada marayso kale ciidana isgoyska wada jooga ku istaajinaya ku weydiinaya maxaa iraahdaa ID card ina wadato in kale gaariga baaraya waxa soo waa isbedel positive ah waa wixii ummadayna ay sugaysay trafficka iyo wadooyinka taagan oo baabuurta kala hagaysa waxyaalo igu ka badnaa sanad ka horan Soomaaliya tagay waxaan ma aragtay wadooyinka baabuur fara badan ma aysan maraynin maanta waxa laga yaabaa in gaariga markaa wada traffic jam at 20 minutes ku jirto waana qurba joog wadanka sida uu soo noqdeen nabadda la dareemay darteed qof walba ila shalay moota gaariga ma laga yaabaa qofka islahay nabadda la dareemay darteed sida dadku gawaari u soo wada gateen ardayda waxay ku leeyahay ma aragtay magaalada hadii aan gaariga wadanin ma aragtay dantaada ka soo dhameeyay kartaa oo kale waxa soo dhan waa rajada iyo isbeddelka positive ka dhacay bashana maanta waxa amaan u filan caasimadda qaranka in madaxweynaha ummadda lagu doortay in gudoomiyaha baarlamaanka lagu doortay in madaxda caalamka ay soo qayb galeen maxay iraahdaa ii sheeg calaamasaarkiisi waxyaala yaryar oo marka qaarkood markii muddo la joogaba qarax wax dhacay way iska jiraan laakiin guud ahaan ma aragtay xaqiiqdii isbedel aad iyo macaan badan wanaag iyo sharaf iyo qiimo ummadda dawladnimada hanaanka soo noqdaan oo arkaa ka jira aad baa mahadsan tahay Titor Cabdiqaadir waxaan filayaa dabcan inaad si weyn sharaxaad uga bixisay isbedelada dalka Soomaaliya hadda ka jira iyo nabadda iyo horumarka ummadda Soomaaliyeed ay ka dhalatay runtii baan kaaga mahadcelinaynaa su'aashayda xigta ee aan jeclahay inaan ku weydiiyo waxa ay tahay Titore maanta shacabka Soomaaliyeed meel walba oo ay adduunka ka joogaan waxa ay aad u naawilayaan in dhawaan madaxweynaha dalka Mudane Xashan Sheekh Maxamuud uu ku dhawaaqo ra'iisul wasaarihii dalka Soomaaliya ay yeelan lahayd ee hogaamin lahaa xukuumadda dawladda federaalka Soomaaliya hadaba ra'iisul wasaare noocee ah ayaa loo baahan yahay in uu noqdo qofka maanta ummadda Soomaaliyeed loo baahan yahay in ay sabata bixiso waa mahadsantahay Ali Arow waa su'aal xaqiiqdii meesha ku jirta waxaan rajaynaynaa hadii Ilaahay yiraahdo biidin Ilaahay tacaala ra'iisul wasaaraha ummaddu ay wada sugayso waxaan rajaynaynaa inuu noqdo mid aqoon leh mid khibrad leh mid taariikh wax qabasho leh ama wax la yiraahdo afqalaad ugu yiraahdo track record waa inuu mid leh inuu noqdo ayaan rajaynaynaa biidin Ilaahay tacaala waxaan rajaynaynaa inuu noqdo mid ay wada shaqayn karaan isaga iyo madaxda kale ee dawladda madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo dhamaan shaqaalaha kale dawladda maxaa yeelay dawladdeena nasiib daro dawladihii wixii ka horeeyay jiray waxay ka dhamaan waayeen wax la iska qabsi iyo maaragtay dagaal iyo maaragtay xalin nasiib daro xitaa heer gaaro in wadamada dariska ah oo qaarkood waxa naga dhaxay ummadda wada ogtahay in ay dhaxgalaan ay kala xaliyaan marka laba ayagiba isdagaashan oo maaragtay isdiidan ma garan kara sida ummad rafaasanay muddo 20 sano ay ka badan ay wax ugu qaban karaan waa nasiib daro inta laga yahay marka waxaan rajaynaynaa inuu ninkan noqdo nin ma aragtay la shaqayn kara walaalihii kale ee madaxda dawladda ee ummadda Soomaaliyeed waxyaalaha kale aan rajaynayno waxa kamid ah in ma aragtay uu noqdo ninkan nin ka go'an tahay in maxay iraahdaa uu ilaaliyo sumcaddii iyo sharaftii ummadda Soomaaliyeed dawladda uu soo dhisayna aad iyo uga taxadara soo xulitaankeeda maxaa yeelay nasiib darrada jirta ayaa waxay tahay marka hore qaabka wax lagu soo xulay miyaan laga fiirsanin ma garanayo ma dadka wax soo xulay ayaanan garanaynin conceptiga la yiraahdo staffing oo lagu barto maadooyinka human resource management-ga ee ah maaragtay putting the right people in the right places ama in qofka walbaba la dhigo meeshuu ku habboon yahay marka taa waxay naga celinaysaa in mar walba xukuumadda soo dhigo la yiraahdo waa la eriyay waa la isku shaandheeyay waa la bedelay oo waqti farbadan wax loogu qaban lahaa marka meesha uu ka baxo nasiib darrada jirta marka waxaan leenahay prime minister-ka noo imaan doona mid insha Allah taala dawladdan waxaan rajaynayaa inuu noqdo mid alla ilahe si dhab ah uga fikira marka hore wax soo xulayo ka bacdina markii uu si dhab ah u soo xulo u daaya positionadooda si ay fursad u helaan ay alla ilahe wasaaradda loo dhiibay ku fariisiyaan u dajiyaan maaragtay hadafyadii objectiveski goalska u dajiyaan maxay raahdaa isha ay full time u helaan ay wax ugu qorsheeyaan wasaaradda loo dhiibay walla ay maaragtay wax qabad ah wali yimaada laakiin hadii markii loo magacaabo oo fariistaba hore laga bedelo nasiib darro wax uu qaban karaa ma jirto
waxaa kaloo rajaynayna insha Allah taala in maaragtay ninka la keenay uu noqdo nin maaragtay waxa uu imaanaya ay yihiin alla ilaahay taariikh iyo legacy iyo maaragtay ummadda Soomaaliyeed intii aad prime minister ka ahayd maxaad u qabatay su'aasha jawaabteeda nin inuu diyaara ayaan rajaynaynaa oo iskala weyn ama ka sareeya shilimaad maaragtay ummadda loogu talagalay tabaalaysan ee dhigu ka daadanayo inuu maaragtay meel ka bixiyo nin waxa iskala weyn inuu noqdo ayaan rajaynayaa waxaan rajaynaynaa khayraadka ummadda Soomaaliyeed ee loo kala baxsanayo ee cadawga u wada malafsanayo nin si dadnimo leh damiir leh bisayl wadaniyad leh maaragtay dhuuxa waa maaragtay uga gubta ee yiraahdo wadankan ana iska leh khayraadkan ana iska leh dadkan waa dadkeygii mana ka yeelayo maaragtay meeshii uu noqon lahaa kabaqaad lagu shaqeysta ummadii dadkii u dhaca ajnabi u dhaca inuu noqdo mid maaragtay aad iyo aad maaragtay ummadii u difaaca waxaan rabaa marka in aan madaxweynaha aan kula dardaarmo maadaama uu asiga soo xulayo ra'iisul wasaarihii inaan dhowr qodob kula dardaarmaan rabo qodobka ugu horeeya mudan madaxweyne ummadda Soomaaliyeed aad iyo aad ayay maaragtay ku rajo weyn tahay amaantaada meel ka saysa taageerada haysa waxay aad laakiin u sugayaan prime minister ka soo magacaabay doontii qaabka ku soo magacaabay doontii waxaa muhiim ah marka prime minister ka soo magacaabaysid number 1 in uusan noqonin prime minister dawladda shisheeye ee wateen wadannada gaarka ah darteed isaas kugu keeneen ama uusan noqonin xitaa prime minister dawlad goboleed gaar ah ee wadato wadanaheeda gaarka ah ee rabto inay ku jujuubto danaha ummadda Soomaaliyeed ee dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel ka soo joogta naga wada dhaxay maaragtay waana sidara marka hadii prime minister aad nooga dhigto nin maxay raahdaa ay dawlad goboleed gaar ah wadato ama maaragtay kaba si dareen dawlad shisheeye ee wadato ee rabto mesela badii ummadda inay ku dhacdo ama ee rabto mesela ay gobol wadankii kamid ah inta maamul goboleed magac loo bixiyo inta ka dhiso long term ama mustaqbalka dheerna ee marka wadankeeda ku darsato mudane madaxweyne inaad maaragtay barnaamijka aad soo dooranayso uu labadaaba ka fogaado oo ah mid alle ku soo dooratay wadaniyad aqoon karti umad jacayl taariikh inuu ka taga nin raba inuu ku soo daro ee rajaynayna oo san noqonin nin lagu keensaday daran laga leeyahay darteed qodobka labaad oo raba inaan mudane madaxweyne aan dagaha ku dhibciyano toos kula hadlaya maadaama TV qaranka aan kala hadlayo waa in uu san noqonin nin waa in marka aad soo xulayso aad qaabka u soo xulayso ka duunata qaabka shal waxa loo soo xuli jiray maxaa yeelay shal waxa lagu soo xuli jiray wax la yiraahdo 4.5 within 4.5 ayuu 4.5 ka xogaa uu qoys waxa uu lahaa ayaa hadana qaybta ummadda Soomaaliyeed kamid ee prime ministerka in laga soo xulay tahay ayaa waxa dhaceysay in ayagii la sii kala takooro oo mar walba la yiraahdo waa in prime ministerka meel gaar ah uu ka yimaado waxaan rajaynayaa maadaama madaxweyne isbedel doona aad tahay in qaabka lagu soo xulay prime minister aad ku soo xulayso uu ay ka muuqato isbedelka biidinay taala saasan aan maaragtay rajaynayaa ayaa kula taliyo sifaadkaasna inuu prime ministerka lahaado ayaan rajaynayaa biidinay taala waan gartay titore waxaan filayaa dabcan inaad asaga laftirkiisa sharaxaad fiican ka bixisay runtii iyo ra'iisul wasaaraha loo baahayay inuu dalkan iyo dadkan sabata bixiyo su'aasha kale ee aan rabay inaan ku weydiiyo waxa ay tahay mar haddii maanta shacabka Soomaaliyeed uu u heelan yahay in uu dib u soo ceshto sharaftiisii iyo karaamadiisii iyo dawladnimadiisii muddadan 4 sano ah maxaa la gudboon madaxda hadda dalka loo doortay iyo ra'iisul wasaaraha imaan doonaba inay kaga faa'iideystaan fursadan rabitaan ee shacabka Soomaaliyeed maanta uu diyaarka u yahay waa su'aal xaqiiqii cayaar oo meesha ku jirta wax qabad 4 sano horta xaqiiqii markii la yiraahdo ma aha waqti aad u yar ma aha waqti xaqiiqii badan laakiin haddana hadii la helo qorshe hadii la helo iyo hoggaan daacada wax weyn xaqiiqii ayaa la qaban karaa dhinaca nabadda dhinaca maamul wanaaga iyo dhinaca soo celinta arrimihii bulshada ama adeegga bulshada haddaan ku bilaabno mesela waa dhinaca nabadda meel hadda waxay joogtaa wadankii ilaa xad nabad wax weyn laga qaban karo maxaa yeelay waxba alxamdulillah inoo bilowday magaalada khasatan caasimadii wadankii hadda wax weyn ay maaragtay amnigeeda aad u fiican yahay hadda ilaa xad
laakiin waxaa amnigaas 4 sano wax weyn loogu qaban karaa haddii siyaabaha soo socda la sameeyo. Number 1 waa in hogaanka madaxweynaha uu horeeyo iyo prime minister imaan doona insha Allah taala iyo golaha wasiirada in siyaasadda dawlad u degsan ay tahay in nabadda geed dheer iyo geed gaabanba loo furo, wada hadal cid kasta la furo oo aan la dhihin maarta anaga guru hebel la hadlimayno iyo xabad anaga dhexayso wax la mid xabad wixii soo kordhinaysa malaha in la wada hadlo wixiiba macquul ah cidaba diyaar ah lala hadlo wax walba lagu dhameeyo wada hadal ay baasha ku qurux badan tahay. waxyaalaha kale muhiimka ah waxaa ka mid ah in la sii xoojiyo wada hadalkii la bilaabay ee dawladii madaxweyne Sheekh Shariif uu hore bilaabay walaalaha waqooyiga Soomaaliland in ma aragtay la sii xoojiyo khudbadii xaqiiqii madaxweynaha uu ka jeediyay waagii intii aan madaxweyne lagu dooran aad ula dhaceen xaqiiqii walaalaha inuu ku doonayo macnaha qaab walaaltinimo is xushmeyn iyo ma aragtay aysan pressure diblomaasiya iyo madadaal midnaba aysan ku raadinayn oo wax aad loo soo dhaweeyay. waxaa muhiim ah iyadana oo ay shacabka intooda badan ay sugayaan iyo aqoonyahanada intaba in si loo helo amni wadanku waa inuu yeeshaa ciidamo dhisan waa inuu yeeshaa. marka waa in la xoojiyaa tayeynta iyo tababaridda ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed wadan aan ciidan lahayn ama aan maartay ciidan xoog loo tayla lahayn amnigiisa ma ku filan karo iyo qaybaha kala duwan ee waxaan ka hadlayaa midalan ciidamada waxay taa sahlaysaa in aan loo baahnaan ciidamada ajnabiga wadankeena joogaan. si taa loo helana waa in koow laga bilaabaa in ciidamada ajnabiga wadanka jooga loo qabto deadline ama waqti go'an ee wadanka ka baxan loo qabto. waxaan iska furan oo ciidamadu iska joogayaan in alla intii ilaa aan maartay annaga wax ka noqono la leeyahay oo waqti go'an loo qabanaynin dad fara badan ummadda Soomaaliyeed kamid ah ayaa aad u dhibsanaya. waxa dadweynaha aqoonyahan nin walba wadankiisa ummadiisa sharafteedii karaamadeedii u naxaya ayaa u baahan in wadankii ciidamada ajnabiga jooga deadline loo qabto. maxaa yeelay dad fara badan ayaa qoryaha xitaa u haysta ajaanibta wadanka jooga darteed. marka waa in deadline loo qabtaa. haddii aan deadline loo qabanin ciidamada ay joogaan meesha waxay ka saaraysaa tayeyntii iyo xoog saaradii ciidamadii qaranka. marka waxa laga yaabaa in si wadanka u sii ciidamada qaarkood xitaa aysan soo dhaweynaynin tayeynta iyo wax u qabashada ciidamada xooga. marka si nabad loo helo waa in maaragtay la xoog la saaraa in ma aragtay deadline la qabtaa ciidamadana ma aragtay wadanka si marka uga baxaan oo annaga isugu filnaanshaan u gaadho. qodobka kale waa in kaalinta odayaasha la soo celiyaa oo ma aragtay aad iyo aad loo wadamootahay salaadiintii ogaasidii ummadan intii dawladda ummadda Soomaaliyeed aysan lahayn oo qabayl ay ahayn waa dadkii nabadda isku hayn jiray. marka dawladii qaarkood kaalintoodii meesha ka saareen waa in marka kaalintooda la soo celiyaa. wax weyn noogu hagaagaya wax weyn noogu badbaadaya. dadka qaarkood waxay leeyihiin gobolada waqooyi waxyaalaha ay ku midaan waxa kamid ah nidaamkii odayaasha ayaan ka burburin oo wax weyn ugu hagaageen. qodobka ugu dambeeya waa in dhalinyarada shaqo loo abuuraa. waa in maxaa yeelay qofku haddii uu dhaqaale haysto nolol fiican haysto ma sahlana inuu maaragtay problem iyo buuq iyo dagaal ma rabo. laakiin qofka hadduu faqri maaragtay haysto family wax ka sooyaan nafsadiisa naftigiisa mustaqbalkiisa uu waliba fara badan ku hayo waxyaalo fara badan inuu u bareero ayaa macquul. marka shaqo u abuurid dhalinyarada waa in xoog la saaraa si oo ayada istaraatiijigu yahay in nabadda macnaha la gaaro. dhinaca maamul madaaga waxaa muhiim ah si loo gaaro in number 1 lala dagaalamo corruptionka. maxaa yeelay corruptionka wuxuu fursad noo siiyay far badan ummadda Soomaaliyeed ay leedahay oo inuu shaabadeeyay inaan hadaan maamul wax ka garanaynin in dad tuuga aan nahay ummadda Soomaaliyeedna cadow ayay leedahay. marka si ummadii dhaqaalihi yara ay hesho loogu mira dhaariyo waa in maaragtay aad iyo aad loogu dadaala in corruptionka lala dagaalamo shilinka soo baxa ummadda loo tashiilay ilaa raado khilaafka in la yareeyo waa maaragtay meesha laga saari isqa qabsiga. maxaa yeelay maamul wanaag iyo khilaaf iyo isqa qabsi meel ma wada galayaan. in ummadda dawladda madaxweynaha iyo prime minister iyo dawladda soo socda biidna taala waa in ayna xoog ay saaraan inay helaan siyaasad arrimo gudaha iyo mid dibadda oo balance galaysan. maxaa yeelay dawladii hore waxa malaysa in xoog ay saaraan siyaasadda arrimaha gudaha laakiin mid dibadda ayaa jirta. waa in la tayeeyaa safaaradaha dadka loo waa in dad quality la ummadda matali kara Soomaad ahaan xitaa wadanka qofka noocan uu mataliyo waa wadan nuucee waa la isweydiinaya caalamka. dawladda waxa jira midalan wadanka group gaar ayagoo maaragtay taageeraya dhaqaale ku bixiya waa in maaragtay naftirkooda xiriirkoodii wax laga bedelaa oo wax weyn la geliya. marka waa muhiim si loo gaaro maamul wanaag waa in arrimaha la sameeyo. qodobka ugu dambeeya arrimaha bulshada
wadanku waad fahmaysaan wadan intaas dhowr ilaa 10 sano burbursanaa waayo waxyaalo fara badan oo in la qabto loo baahan yahay ayaanan 4 sano kadib lagu qaban karin laakiin ugu yaraan waxayna laga bilaabi karaa haddii aan la caafimaadkii haddii aan la waxbarashadii haddii aan la amnigii haddii aan la waxyaalihii dawladdu ay u qaban lahayd ummad tabaalaysan ilaa 10 sano burbur ku jirtay laakiin waxaan aaminsanahay waxa la qaban karaa qodad muslimiin baan nahay ilaahay ma aragtay ayadiis quraanka iyo kulliyahay la taqridu bi rahmatillah la yasmu ruux billahi illa alqawm alkafirun marka waxaan nahay ummad muslimiina waxaan nahay ummad boqolkiiba muslimiina ilaahay aaminsan 4 sano way inuu filan tahay waxaan rajaynaynaa in la helo hoggaan wanaagsan oo dadnimo iyo damiir leh ummadda u naxa taariikh lama ilaadaana ka taga insha Allah taala waxaan aaminsanahay waa la qaban karaa waana la qabanaya biidhnaa taala waan gartay aad baa mahadsantahay Dr. Cabdiqaadir runtii waxaan filayaa inaad in badan sharaxaad ka bixisay 4 sano muddadan kooban iyo wax qabadka lagu qaban karo hadan u gudbo su'aashayda ugu dambaysa oo aan jeclahay inaan qaybtan hadda barnaamij ku soo gudbiyo hadii rabbi aan ku soo dhameeyo hadii rabbi anigu dadweynahana hadii rabbi ka raali noqdo intii aan ka gaarno 2 3 4 qof aan qadka telefoonka u furi doono hadii rabbi ka raali noqdo si ayaguna ay barnaamijka nagala qayb qaataan waa idin furaya barnaamijka dabcan waa dhageysanaysan saan filayo markan fikirkiina waa ku soo qayb qaadan kartaan laakiin hadaan su'aashayda ugu dambaysa ku weydiiyo Dr. Cabdiqaadir guud ahaan caalamka gaar ahaan caalamka islaamka gaar ahaan qaaradda Afrika waxa ka jira isbeddello aad u xoog weyn oo dhanka siyaasadda ah wadamo badan oo caqabadihii Soomaaliya ka jiray lagu tilmaami jiray in ay qayb ka ahaayeen ayaa maanta waxa ka dhashay isbeddel marka ma isleedahay isbeddeladan ka jira qaaradda Afrika gaar ahaan wadamo badan oo dariska nala ah iyo isbeddelka siyaasadeed ee Soomaaliya ka dhashay Soomaaliya waxa u tahay fursad ay mar kale ku istaagi karto oo ay dib ugu soo ceshan karto dawladnimadeedii ma isleedahay Titore waaka cali aar waa isbedelka wadanka ka dhacay iyo isbedelka caalamkiisa kale ka dhacayba waan aaminsanahay xaqiiqdii in uu yahay kii ummadeena ay uga bixi lahayd rafaadka ay ku soo ceshan lahayd sharafteedii karaamadeedii qarinimadeedii la gaaro waqtigii qofka Soomaaliyeed adduunka dacadiis markuu u marayo Soomaaliyana markuu yiraahdo fadhiga looga istaagi lahaa ama sida ummadda kale loo sharfi lahaa oo aan ma aragtay ummad argagixiso dheh waxa tiraahdaa ummad burcad badeed dheh ummad maxay yiraahdaa waxyaalaha caalamka qaarkood ay nagu shaabadeynayaan in aan ma aragtay waqti aan ka bixi lahayn in la gaareen aaminsanahay waxyaalaha u sababeeyay waxa kamid ah number 1 in maanta wadankii ay hogaaminayaan aqoon-yahano aan ma aragtay lahayn taariikh mugdi ah faro gacmahooda aysan aan dhiig lahayn mudane Jawaari oo guddoomiyaha baarlamaanka ah nin aqoon-yahana madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed mudane Xasan Sheekh Maxamuud waa aqoon-yahan waliba lagu yaqaan maanta qaybta academicska ma aragtay laba nin oo taariikhdooda nadiif tahay dhinaca hoggaanka hadiye waxa iyo burburka wadanka dagaalada aan ka qayb qaadanay ummadda aad u farxsan tahay rajo fara badan ayayna ku qabaan waxaan rajaynaynaa marka inay ayagu dhulka aysan isku dhufan doonin ummadana ku dhufan doonin maadaama hoggaanka aqoon-yahan uu qabtay waan ka baxay waqtiga isbedelka dhacay oo aqoonta aqoon-yahanka ay wadanka qabteen waa kii sharafta iyo wanaagii ummadda qaranimada rasmiga ummadda ay ku gaari lahayd waxaan kale u sababeeynaa inuu yahay kii alla ilaahay ma aragtay sharafteena ku soo noqonaysay inay yahay isbedelkaas waxaan sababeynaa ummadii oo xaqiiqdii bislaatay 20 sano hadda qaar ma aragtay dad ku dhamaada qaar saxar ku dhamaada qaar qurba ma aragtay ilmooda laga qaato qaar ma aragtay xabsiga ku jira marka waa la bislaaday wax la yiraahdo dawladnimo waxay taa la arkay in waxa la arkay in wadan hadii uu ku dhisan yahay qaran aad leedahay in ma aragtay aad ku sharfan tahay kama waadin ahaan aad leedahay cid ku dooda aad leedahay laga gambado aad leedahay wadan aad si nabad u noolaato u shaqaysato aadan u baahnayn inaad meel ama iqaamo ku joogto ama kafaalo ku joogto ama aad fiisa ku joogto ama aad migrant iyo black ka ahaato aadan u baahnayn in wadan leho dirin tabada dhigta soo u saxanay inaad tahay isogaato marka bislaad ummadda bislaatay oo dawladnimo qaranimo bislaatay naftarkeeda waxaan aaminsanahay iyo hoggaanka nadiifka ah ee wadanka qabtay inay taa waqtiga aan ma aragto wadanka wanaag far badan ku gaari lahayn waxa kale aan aaminsanahay in isbedelka ka dhaca caalamka oo mesela dawladda waxa jiray regime change uu ka dhacay oo wax alla wixii nidaamkan ama hal mar la dabagediyay nidaamkaas oo la siyaasadda aad u guracan oo ah inuu ummadii isku diro isku hubeeyo dhaqaale far
badan ku bixiyay wadanka burburkiisii dhulka ay noo celi jireen muddo aad iyo aad u fara badan marka hogaamkii dhan markuu meesha ka baxay oo revolution wax meesha ka saareen kuwa soo galaya ee markay yimi waxaan rajaynaynaa in maaragtay siyaasad cusub iyo furfurnaan wanaag iyo walaaltinimo inay insha Allah taala uga dhaqmi doonaan ummadana ay noqon doonto kuwa ka faa'iideysta waxaa kaloo jira nidaam dhisan laakiin maxaa raahdaa ii sheeg nin meesha ka baxay walow siyaasadda meesha ay taal laakiin aydan isbedel inay ka talayaaba mid ugu dambaysa qodobka ah oo permanentiga dawladda ay gashay oo maanta ay agreement gali karto waxyaalo far badan ee go'aan ay qaadan karta naftirkeedana waxaan rajaynayaa inuu isbedelka weynka ah uu noqdo midkii ummadda xutari lahaa waxaan filayaa dabcan inaad iyada laftirkeeda sharaxaad badan ka bixisay intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa qaybtaas aan waraysi ka qaadiyay balse wuxuu ahaa doctor cabdiqaadir maxamed cismaan oo loo yaqaano cabdi boqor oo ah macallin wax ka dhiga jaamacadda caalamiga ah ee almadina international university ee waddanka malaysia oo nagala qayb qaadanaya barnaamijka aad ayaan kugu mahad celinayaa doctor cabdiqaadir waa gabagabadii markale waan kaga mahad celinayaa sida ay ugu casuunteen waxaana idin rajaynayaa adiga iyo bahda TV-gaba guul iyo horumar bashbash barwaaqo iyo waddankoo nabad iyo horumar ku talaabsada waa mahadsantiin adaa mudan hadda waxaan u gudbi doonaa haddii rabbi ka raali noqdo mar dhow khadka telefoonka saaxiibada barnaamijka la socday waa ay kasoo qayb qaadan karaan 2 3 4 qof ciddii aan ka gaarno iyadoo aan telefoonno badan qaadan doonin haddii rabbi ka raali noqdo barnaamijka halkiis ayuu idinka sii socon doonaa barnaamijkuna waa barnaamijkii falanqaynta hadda waxaan u gudbaynaa daawadayaasha Soomaaliyeed ee khadka telefoonka 2 3 qof intii aan ka gaarno waxaan filayaa dabcan inaad barnaamijka si fiican ula socoteen aadna waraysi si fiican u dhahdeen waxaan siinayaa qofka ugu horeeya hadduu ku jiro waan khadka telefoonka ayaan usii gudbi doonaa saaxiibada waxaan filayaa dad badan aad soo wacayay waa ka gudbi doonaa telefoonada hadhow ayayna soo geli doonaan tijaarku waxa uu ka hadlay isbedelada Soomaaliya hadda ka jira halo assalaamu calaykum عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأد بن فعلا ما شاء الله وكم أغلى مقعد ماشي جلسة ليسيد. عن كسامة يا وضع كسامة في كم مقعد على هذا أنا سمعت. هي. المحايدة هذا. مركز روح سلامة يا دمان بهذا يو صحفيين تا تيجي قرن كالصوماليات. ما حسنت هاي كسودو هي ولا الكي. marka labaad waxaan halkan hambaliyo uga dirayaa dhammaan wasiiriinta qaranka Soomaaliyeed ee xilka ay u idmadeen ummadda Soomaaliyeed ee inta badan u oomaneyd nabadgelyada horumarka dowladnimada iyo sharaftii ummadda Soomaaliyeed ee dhuntay waxaan leeyahay hambaliyo mataqaanaa Professor Jawari iyo Professor mataqaanaa madaxweynaha qaranka labadaba ayaa ugu hambaliyeenaya هذا مدن والكي حبلي كلمة هين معناها برنامج كنا هذا تصفي عن دوّن سوحنا كجه هذا النيء أو مهمة سؤالي أنت ترك ويديني وحكم ذها إن إسبدل لذن عالم ككتيرة إن يقارد أفريقيا يودم الدرس كان لا أبا إن سيدي أنا قلنا نقف إيدي سنة هين أو فرصة نقول هاي فرصة دل كان يدت كان الصومالية ده مركلة شرفت ودي دي بقول عشان الهاين قدك بس كهل لأن مركا إن دوينها أيام تلقين اللي بس ده أنت كجارنا هاي وان si fiican baan u fahmay waxa anigoo ka faa'iideysanaya fursaddan haysta ayaan u soo hormarsanay ma in si fiican mataqaana farqada la hadlay hadii aan ku soo dhawaado mataqaana boysigan ka hadlayno oo ahaa isbedelada caalamka jira iyo kan wadanka Soomaaliyeed ka dhashay intaba waxa jirta isbedelo fara badan oo ka dhacay caalamka geeska Afrika wadamada Carabta waxay dhammaan isbedeladaas waxay furo u ahaayeen isbedelka siyaasiga mataqaana hadda ka dhacay magaalada Muqdisho waxaana rajaynayaa hadda waxa jira isbedelo badan oo ka dhacay geeska Afrika marka meelo badan la eego aniga hadda maaragtay aan rabin inaan nala arabaado laakiin waxa jira hadda isbedelo fara badan oo maaragtay oo siyaasi ah oo dhacay wadamada dariska ka dhacay waxaad moodaa inaga lafteenu haddii aan waddan Soomaaliyeed oo maaragtay inta badan dadka iyo rafaadka ku soo jirtay inaan nahay qaar ka faa'iideysan kara isbedelada waayo waxaad ogtahay ummadda Soomaaliyeed ama waddanka Soomaaliyeed waxa uu xuduud dheer la leeyahay wadamo daris ah oo maaragtay siyaasado kala duwan iyo dana kala duwan iyo hadafyo kala duwan oo wajiyo badan leh ay mataqaanaa ka dhaxeeyaan haddii ay wadamada isbedel siyaasadeed ka dhacaan mar kasta ummadda Soomaaliyeed ayadana isbedel siyaasadeed ayaa mataqaanaa dhankeeda ku imanaya
isku soo wada duuba hadda ani waxaan aaminsanahay inay tahay waktigii ummadda soomaaliyeed ay heshay furihii nabadda, furihii horumarka, furihii dimuqraadiyadda, furihii midnimada. sidoo kale waxaan leeyahay oon aad iyo aad soo dhaweynayaa khudbadihii maaragtay madaxweynaha uu jeediyey oo ahaa kuwo soo jiidasho leh marka la eego yacnihii adoo soo gaabinaya dadka kalaan siin lahayn saaxiibo kale ayagana khadka telefoonka ku jiro telefoonka aad soo biis u siiyay marka waxaan rajaynaya inagoo ka faa'iidaysanaynaa maaragtay isbedelada siyaasiga inaan fursad siino walaalaheen maaragtay soomaaliyeed khaasatan walaalaheen mataqaana walaalaheena waqooyi ama maamul goboleedka maaragtay somaliland ama xukuumadda hadda somaliland ka talisa ama shacabkeeda oo ah dad jecel soomaalinimada wadaniina laakiin u baahan meel soomaaliya ku wada hadasho oo maaragtay ay kala xisaabtamaan wixii horey u dhacay inuuna dib u dhicin. waxaan jeclahay inay yihiin dad bisil oo siyaasiyiin leh oo aqoonyahan leh oo waxgaran leh. madaxweynaha sida u hadlay usoo dhaweeyey in ummadda kale ee soomaaliyeed iyo muslimiinta kale ee soomaaliyeedna ay ka qayb qaataan sidii loo horumarin lahaa arrinta iyada. waan gartay aad baa umahadsan tahay in ummadda soomaaliyeed aad baa umahadsan tahay walkay saaxiibada kale aan sii siin doonaa aad baan idin kaaga mahad celinaynaa dabcan fikirkaaga waa ku siinaa filaya aad baan kaaga mahad celinaynaa saaxiibada kale ayaan ayagana sii siin doonaa 2-3 qof intaan ka gaarno sidoo kalena waxaan barnaamijka idinku hayaa heesta dhulgariir oo loogu talagalay kooxaha nabadiidka ayadana haddii rabbi kara noqdo waan kusoo gabagabayn doonaa qofkaas khadka ayaa ka go-ay waa ka xumahay laakiin 2-3 qof inta aan kasii gaaro haddii khadka telefoonka uu ku jiro haddii kalena waxaan mar dhow qaadan doonaa halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum halo calaykum salaam ayo walaal magacaaga meesha kasoo hadlaysid walaal waxaan kasoo hadlayaa london waa maxamed muudey london maxamed muudey kusoo dhawow barnaamijka waaki dhammaan waa salaamaya ummadda soomaaliyeed asalaamu calaykum gaar ahaan dawladda cusub oo noo dhalatay ayaan salaamaya wax yaroo 14 yaroo gaaban ayaan rabay inaan u gudbiyo madaxweynaha oo rabo inuu ra-iisul wasaare soo dhiso taasoo ah dad badan oo siyaasiyiin waxay isku mashquulinayaan in la helo cadaalad in waxa weeye cadaaladda nin walba waa jecel yahay laakiin dabaqa saddexaad haddii la dhaho jaranjaro la-aan ayaan ku doodaya macquul maaha ku yimid qabiil 4.5 marka sidaa darteed madaxweynuhu waxaan ka codsanaynaa in uusan hadalladan faraha badan uusan sameyn ama puntland ha noqoto ama gobolada bay iyo boqol ha noqoto mid alle midkuu noqdo oo 4.5 maadaama lagu qaybsado si uusan qalalaasa kale oo hor istaag uusan u imaan inuu u magacaabo markaa kadib oo isaga laftiisa uu dhamaysto 4 sano oo doorasho balaaran ay dhacdo markaa kadib baa madaxweynaha go-aankiisu waa uu u diyaarsan saan filaya ama asaga noo soo gudbin doona haddii rabbi ka raali noqdo aqoonteedii way aragnimadeedana waa uu leeyahay waan ka gudbi doonaa haddii rabbi ka raali noqdo waxaan u gudbi doonaa halka qof oo u dambeeya aan qaato halo asalaamu calaykum halo waan ka xumahay qofkaas waa maqlilaya u malaynaa halo asalaamu calaykum waaleykum salaam haye walaal magacaaga meesha kasoo hadlaysid waan ka xumahay ayadana waa ka go-ay gabadhaas waxaan leenahay naga raali noqo qofkaas halo asalaamu calaykum عليكم السلام haye walaal magacaaga meesha kasoo hadlaysid walaalo magacayga waa xaliim waxaan ka soo baxayaa UK magaalada Milton Keynes haye xaliim kusoo dhawow waxaan barnaamijka waa la socotay isbedelada siyaasadeed ee ka jira caalamka gaar ahaan qaaradda Afrika sida aan uga faa'iideysan karno ummadda Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed si aan mar kale cageen ugu istaagno haye ma sha Allah tabarakallah waa wax loo baahan yahay horta dadkan qurbaha joogana kulli Istanbul oo loo wada taagan yahay maxay ahayd usually horta Soomaaliya I think inay noqotay dawladda hadda feer ku dhalatay waxaana ahay qofka ugu horeeyay saborgareen lahaa maxay ahayd magaalada mugdiga ahaydna hadda kulli mugdiga way ka baxday Muqdisho waxa yar la sugaa waa in al-shabaab la riixi inay magaalada nadiif noqotay inay dadkii mataqaana qurbaha noqdaan usually horta waxa la dhahaa farkali fool ma noqdo waan la soconaa siyaasadda habeenkii maalmihii madaxda mataqaana sida dawladdu dhalatay waa wada taagnay waa wada fiirsanaynay macnaha waxyaabaha badanaa Soomaaliya dream gareynaysa dadka inay dawlad xaq dhalato tanna majority-na ummadda waa isku raacday inay maxay ahayd live aan barnaamijyada u fiirsanaynay website-yada waan ku arkay runtii waa nin aad u adag hadallada qoraalka la soo geliyeen waan arkay inuu asaga maskax qof kale ama dibadda ama qof hor loogu taago uusan
mataqaana maskaxdiisa aysan ahayn an abroad waana jeclaaday runtii markuu yiri aniga maxay aheeto dooranayo qofna far leeguma taagayo prime minister ma fahamtay marka walaalo waxaan anagu hadda u taaganahay inay sidii aan kaga soo tagno muqdisho aniga wax badan baan ka soo maqanahay qof yaraan yurub ku soo galaanahay 25 years aan ka maqanahay meel kale ma ka saay muqdisho ma exactly marka sidii dhulkii baaba loo hagaajin lahaa iyo nabadgelyo maxay ahayd in ganacsiga dadka dibadda ay ka noqdaan lacagaha dibadda la geelinayo ana kamid ah dadka qubraha ganacsada ku ah oo u noqdo wadankeygii oo hagaajino laakiin the problem is safety ba xogaa moodaa inuu mugdi ku jiro insha Allah safety waa imaan doona aadayo ma santahay xaliimo ila duraal gadhigo insha Allah aadayo ma santahay xaliimo igala saadisay UK adigana sidoo kale insha Allah ta'ala we hope inaan support gareeno aad ma santahay xaliimo contribution kana ka qayb galno jidadka dhisno wax walba ila duraal gadhigo insha Allah dabcan ganacsatadana waa loo baahan yahay in ay dalka ku noqdaan oo ay geesnimo muujiyaan dalka hadii uusan dadka la ku noqonin ma dhici karto in dalku asagu isdhiso ganacsatada iyo Soomaalida iyo dadka lacagta haysta ayaga ayaa looga baahan yahay dalka dib ugu noqdaan si dalka iyo dadka dib loo dhiso intaas ayaan ku gudbayaa qaadka telefoonka halo assalaamu alaykum alaykum salaam hayo walaal ku soo dhawow waxa taa qofkii u dambeeyay oo aan qaadka telefoonka siino magacaaga meesha ka soo hadlaysid waxaan salaamay magacaygu waa Maxamed Jaama waxaan ka soo hadlayaa London UK hayo Maxamed Jaama ku soo dhawow marka saxay horta waan habaleenayaa madaxweynaha insha Allah waxaan rajaynayaa inay shaqada ku dhamaato guul laakiin madaxweynaha insha Allah waxaan leenahay ma garanaysaa hawl xoog la ayaa u taala wadda ku dhismo aad u baahan yahay wax koo iyo laba laga soo bilaabi kara maaha insha Allah waxaan leeyahay ma garanaysaa ha isku tagaan dadka aqoon-yahanka iyo waxa dhan ha isku tagaan xaral loo doorto ra'iisul wasaaraha nin aqoon leh oo wadanka dhisi kara yara waqtiga madaxweynaha waxaan leeyahay waqtiga isku waqtiga uu iska lumin maarta wada hadallo Soomaalida dhexdeeda u bilaabay waxaas yaan waqti isku lumin maxamed adoo mahadsan daawadayaasha wali 3-4 qof intaan ka soo gaarno waa siin karnaa qadka telefoonka dirab karaam noqdo maadaama adiga aan ku yiri qofkii u dambeeya tahay insha Allah 2-3 qof oo kale waan sii qaadan doonaa daawadayaasha adoo mahadsan tahay iyo maxamed وارك حماي محمد واو كغاي ان داوديش waxaan sheegnaa barnaamijku wali cabaar noo sii socon doona dirab kara noqdo qaan doona halo assalaamu alaykum halo assalaamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh hayo walaal magacaaga meesha geela soo hadlaysid walaal waxaan kala soo hadlayaa wadanka Norway magacaygan waxa la yiraahdaa Maxamed Cilmi Cadow waxaan ka deganahay magaalada Halden hayo walaalkiis waxa filayaa barnaamijkeena la socotay si wanaagsan aad iyo aad haye maxaa ka soo baxay isbedelada siyaasadeed ee dunida ka jirta kaalintee ayaan ka gali karnaa ayad isleedahay wallahi runtii waa mustaqbal waxaan ilaahay ka baryayaa inaan kaalin fiican ka galnaa dadweynaha aan la dhaqano oo mataqaanaa la wadaagno sida ay u nool yihiin iyo dadka sida isu fahmaana ilaahayna fahamsiiyo ma sha Allah gartay isbedelada siyaasadeed dabcan dal markii uu burburo inuu dib u soo noqdo oo uu dawladnimadiisa dib u soo ceshto waxa awoodda koowaad iska leh shacabkiisa marka shacabkeena Soomaaliyeed kaalin nooca ay ka gali karaan isleedahay wallahi billahi sidaan aniga aaminsanahay shacabkeena Soomaaliyeed kaalin wanaagsan oo weyn ay ka gali karaan waxa kaliya u baahanahay waxa way anagoo ixtiraamno anagoo wadaninimo muujino anagoo fooldignaano anagoo iska dayno macnaha meelaha tursiga iyo wadooyinka iyo meelaha bilaa macnaha loo fadhiyo waqtiyadii aan macnaha aan caawino madaxweynaha waa nin kaliya hadirtan nasiib ku hel dhalinyarada nin wanaagsan ah in anaga garab istaagno oo culeyska iyo xooga iyo dhibka iyo horumarka oo asaga rajaynayo in anaga aan la qabano because hadii aan anaga garab istaagin saqiir iyo kabiir iyo aqoonyahan iyo military iyo police iyo nabadgelyo iyo hooyooyinka iyo kulli waxa soo dhan uu ka saari karaa laakiin aad ma santahay maxamed aad ma santahay waxaan siin doonaa saaxiibada kale adayaan kaga mad celinaya waqtigaaga maxamed oo Norway ka soo wacay adayaan kaga mad celinaya waxaan siin doonaa saaxiibada kale oo dabcan ayagana ku jira saacado badan soo garaacay qadka telefoonka xigaan qaato halo assalaamu alaykum waan ka xumay qofkaas waxaan filayaa telefoonka ayaa ka go'aya codkaaga si fiican uma maqlo waan ka gudbayaa qadkaas qadka xiga ayaan qaadan doonaa hadii rabbi karaali noqdo dad badan ayaa telefoonka soo garaac doona hadii rabbi karaali noqdo anagana fursada waan sii siin doonaa halo assalaamu alaykum wa alaykum assalam haye walaal magacaaga meesha kala soo hadlaysid walaalo waxa la yiraahdaa Sucaad Umar waxaan kala soo hadlayaa dalka Mareykanka San Diego California haye Sucaad USA haye walaal
waxaan filayaa inaad la socotay يا ولا لا waxaan filayaa inaad la socotay barnaamijka su-aasha aan dadweynaha ugu talagalnay inteeda badan waxay ahayd kaalinta aan ka geli karno isbedelada siyaasadeed ee dalka iyo dadka Soomaaliyeed isbedelada siyaasadeed ee ka jira caalamka kaalinta ay ka geli karaan dalka iyo dadka Soomaaliyeed ها ولا لا waxaan ka qabo waxa weeye ma maqlaysaa si fiican ها ولا لا أنا waxaan qabaa walaalo horta dib way iska jirtaa wadankeena ani almost waxaan kasoo maqnaayay almost 24 years مثلا دولي Soomaaliya ma arkin I hope inay Soomaaliya nabad ahaan lahayd ma taqaanay wax xawal waxay ku dhismaan horta يعني Soomaaliya waxay dhahaa gacmahooda jid u qabtaan Soomaalina wada aragtay maanta wadankeeni dibaa ku jira qof walbana ma taqaanay aniga waxaan maanta ka hadlay kubadda waxa uu wili sheegay inta way kala dilay marka arkay يعني أنا arkin waxba isku heeraan ka kurbooda xanuunka waan gartay taas dabaan waxaan filayaa walaasha waxaan jeclaan lahaa inay kala dambeeyaan iyo xurmad nabad Soomaaliya joogtana waxa fiican qabiilka iyo qurunka iska daayo in hor la socod ma mahadsan tahay walaashaada ayaan kaga mad celinayna waqtigaaga sucaad oo US naga soo wacisay aad ayaan mahadsan tahay waan ka gudbi doonaa khadka xiga ayaa siisin doonaa dirab karaali noqdo dabcan telefoonka ayaan qaadan doonaa khadka xiga hadii rabbi karaali noqdo anagoo mar dhow barnaamijka soo gabagabayn doona hees aad u qurux badan aan idin hayno lagu talagalay dadka nabadiidka halo assalaamu calaykum عليكم السلام هيا كسو دو تي في قرنك Soomaaliyeed magacaaga meesha kala saadaysid wiilasha dafarax aygu celi wiilasha dafarax هيا wiilo كسو دو تي في waa dhawaa هيا waxaan filayaa inaad la socotay barnaamijka raas waa way dhaasaniyo ugu soo celbalay damacaas waan gartay hadduu ku dhaafo waan ka gudbaynaa su'aal baan ku weydiinayaa isbedelada siyaasadeed ee dalka ka jira waan ka xumaay waa qofka waa ka gudubnay maadaama ay u qaadatay inaan mar kale qofka xiga ayaan siin doonaa halo assalaamu calaykum waan ka gudbayaa asagana qofkaas waa maqli dhaasaysan filayo halo waan ka gudbi doonaa haddii rabi ka raali noqdo waxaan siinayaa labada qof ee ugu dambaysa khadka telefoonka halo assalaamu calaykum halo haye walaal magacaagii meesha kala soo hadlaysay halo assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا كسر دوتي في قناة الصومالية ما قاعد يمشي جلسة ليس وكل وحاب كسو هلا يا نور وحلي هذا نور بلا هاي نور بلا كسر دو برنامج كون السعودية أنا كم مكان هذا ضد وأهلنا أنا كم مكان وحان أوران خريا مركل الدورين هي برلمان كأفيين كيو مدحوينها بس فعنا عدالة على قدرتي صح markii ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inaan makaha ra'iisul wasaaraha la dooranay in madax cadaalad ah makaha wax badan aan arkaynaa ra'iisul wasaaraha waqtigaan inuu raaga maahan wuxuu ku raagay in kulli dhibaato ay jirto waa la soconaa waxa la yiri fulaxantiisa ma moogina madaxweynaha loo caga jugleen dadka dariska oo yacnaas waan ka xumahay dabcan waan ka xumahay kama hadlaynin ra'iisul wasaaraha sida lagu soo dooran doono iyo waqtigiisa kama hadlaynin laakiin waxaan u maleynaa hadii ilaahay yiraahdo waxaan inaa waan ka gudbaynaa qofkaas mawduuca inaan ka baxna maaha waxaan ka hadlaynay isbedelada siyaasadeed ee dalka Soomaaliya ka jira iyo isbedelada caalamka ka jira gaar ahaan qaaradda Afrika maalinta aan ka gali karno maadaama aan rabno in aan ummadeena iyo sharafteena iyo cizigana dib soo ceshano dawladnimadeena nacagaha u dhigano waa qodobka aan dadweynaha ugu talagalnay inay ka dhahan dabcan toorka barnaamijka soo qayb galana uu falaqaynta ku bixiyay halo assalaamu calaykum calaykum assalaamu calaykum aquuya haye walaal waalaikum salaam magacaaga meesha kala soo hadlaysid ها waxaa la yiraahdaa Cusman Xirsi waxaan ka soo hadlayaa London hayo Cusman waxaan u hambalyeeyaa madaxweynaha Sheikh Hassan Sheikh Maxamuud iyo saddexda gudoomiye la doortay waxaan rajeynayaa inaan guul ku dhameysano waayo wadanku waxaan ahayn dowlad la'aan ilaa iyo hadda waxaan galnay isbedel cusub baan galnay waayo tii horena waxa dhibka jirta waxa weeyaan ummadu ma ay soo dooran ama mid ay ku qanacsan tahay ma soo fuulin marka isbedelkan hadda la qiimeeyo qaaradda Afrika ka jira wadamada dariska nala ah
iyo kan caalamka kale ka jira caalamka islaamka iyo caalamka kale dabcan isbedel xoog leh baa ka dhashay marka mis leedahay isbedelkan fursadan hadii ummadda Soomaaliyeed ay sidii la rabay uga faa'iideysato waxay noo noqon kartaa fursad aan dalkeena iyo dadkeena dib ugu soo ceshano oo markale dowladnimadeena cagaha ku dhigato هذه أرطل صومالي هدارنا وحن نقالنا ما أنت هدي مال لغوص ومقعابه إذا مركبة أضونا الشقادي قرنبا واحد أخيسا ومد كاسه الشيدة مركبة قلت لنا يا صومالي إنه كده أيام هل هي لبتا أين السجان قفك وصوت دورته وحن رجالي إن شاء الله قفي عن وجه عصبله ووضل يدلت الجود كفكره يا رجالي إن شاء الله. هذا ما صنت هذا كعب وحنا رجالي مدحونه إن إلى السجع مسؤول كأصومالي ومضى إن أون طفلة أون كهران مال والبناء لا تعالى إن شاء الله. هذا ما صنت هاي اسمه نور حرسي أو يقص وعي مقالة لندن هذا ينكون مدعينا يا وحنا سيجارة ومدعينا يا دمان صاحب هذا برنامج كنا جلس شقيي هذه أي أهان لهيد تتوركا أو نجلس وقيب قال ودك ماليزيا أحمد أسهري أو ستوس أي قحري مقالة ماليزيا جلس شقيي قف أي هذا خد كسوق عليه. هلا السلام عليكم وأنا قفك جدا بي. هلا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هيا ولا. سلامة. نصيبنا وحنا قطع قفك جدا بي وأنا خد كتلفون كسيرنا هي مجا عاجي ماشي جلس هذيس. ولا المجعي وحيرة هذا لون حاجة اسمه. هيا. مقالة مانشستر. مقدشو. مانشستر هاي ها مانشستر UK marka waxaan rabaa inaan ra'yigayga ka dhiibto si aan u falanqeeyo waxyaabaha ay ila tahay marka waxaan leeyahay dawladii la dhisay bacdina aan ka baxnay dawladda kumeelgaar ah waan gartay rasmi ah ay adoo ma santahay ummadda Soomaaliyeed la hadlayo aad baa maasantay abayo aad baa maasantay warkiiba hadda saacadiisa aan taaganahay marka warkaan idinku wareejina dirba garan aad ayaa maasantay walaashay aad kaga mahad celinaya sida aad ila soo xiriirtay waxaan markan idinku duwayaa warkii oo laga akhriyo magaalada Muqdisho sidoo kale waxa idinku xigi doontaa heestaan idin ballan qaaday ee dhulgariir oo aad iyadana hadii rabbi ka noqdo si toos u daawan doontaan waa aniga Cali Cabdi Maxamed iyo saaxiibkay Roble oo gadaal igala shaqeynayay iyo Caamir Yare oo asagana markii hore ila shaqeynayay waxaan idin leeyahay dhamaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh. Adana Taiwan
dhabarkan jabinayaan dhaqanlawayaashii ka dheeraday diintow dhalanta ka beentiyo shakadii dhammaatee dhulka maad gelaysaan dhaqanlawayaashii ka dheeraday diintow dhalanta ka beentiyo shakadii dhammaatee dhulka miyaad gelaysaan dhamacyo rasaasiyo dhimbil baa idin qoran lilada colaadiyo dhakafarku waa kow dhamacyo rasaastiyo dhimbil baa idin qoran lilada colaadiyo dhakafarku waa kow kolay waa dhibkiino idinka dhaawiciine hadday dhalatay nabadi macirkaa dhambali hooy macirkaa dhambali kolay waa dhibkiino idinka dhaawiciine hadday dhalatay nabadi macirkaa dhambali hooy macirkaa dhambali soo dhawaato xaqiiba dhalaale daagaar qaba ha muuqdo madhadhaabyadaad geli rumbaa soo dhawaato xaqiiba dhalaale daagaar qaba ha muuqdo madhadhaabyadaad geli dhameeyo dhiigya cabdalaan cune idinka nabad ka daartee dhulgariir ma idinku dhacay dadka kuwaa dhameeyo dhiigya cabdalaan cune idinka nabad ka daartee dhulgariir ma idinku dhacay ma idinku